السلام عليكم وولالكين مبارك محمود سليبان iyo channelkeeni Tayoton Media fadlan hadaad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar sidoo kalena gambaleelka yar furo si aad ula socoto muuqaalada dambe aan soo gelin doono haddii aad muuqaalka ka heshona like saar si uu dad badan u gaadho waxaynu halkii ka sii ambaqaadaynaa taariikhdii taxana ay noo ahayd ee dowladda Cusmaaniyiinta maantana waxaynu ka sii ambaqaadi doonaa taariikhdii Suldaan Muraadkii saddexaad Suldaan Muraadkii saddexaad oo ahaa suldaankii 13aad ee boqortooyadii Cusmaaniyiinta wuxuu ku dhashay gobolka Manisa sanadkii 1546 miilaadiga aabihiis wuxuu ahaa Suldaan Saliimkii labaad hooyadiisna waxay ahayd Nuur Baanu Khaatuun wuxuuna si wanaagsan ugu hadli jiray luqadaha Turkiga, Carabiga iyo Beershiyaanka dhinaca yaraantiisii markii uu qaangaadhay Suldaan Muraadkii saddexaad sanadkii 1562 miilaadiga waxaa loo magacaabay inuu noqdo gudoomiyaha gobolka Sanjaaq iyadoo la raacayo caadadii Cusmaaniyiinta ee ahayd inay amiirada u dirto gobolka Sanjaaq si ay u bartaan arrimaha maamulka dowladda haddaba markii aabihii Suldaan Saliimkii labaad uu la wareegay xukunka boqortooyadii Cusmaaniyiinta Suldaan Muraad wuxuu ahaa 20 jir wuxuuna la wareegay maamulka gobolka Manisa taas oo loo magacaabi jiray amiirka dhaxal sugaah noqonaya si loogu diyaariyo inuu noqdo suldaan haddaba intuu ku sugnaa Manisa wuxuu ku guursaday gabadha doona oo la odhan jiray Safiya gabadhaas oo uu aad u jeclaa isla markaana saameyn weyn ku lahayd arrimaha boqortooyada xilligii xukunkiisa haddaba xilligii uu la wareegay saldanadda Suldaan Muraadkii saddexaad wuxuu la wareegay xukunkii boqortooyadii Cusmaaniyiinta sanadkii 1574 miilaadiga kadib geeridii aabihii Suldaan Saliimkii labaad markuu xukunka qabtayna wuxuu jiray 28 sano kadibna wuxuu amar ku bixiyay in la dilo 5 kamida walaalihiis oo isaga ka yaraa si aan xukunka cidi ugu qabsan sidoo kalena wuxuu amar ku bixiyay in khamriga la mamnuucay khamrigaas oo si weyn loo cabi jiray xilliyadii Suldaan Saliimkii labaad isla markaana ay si xad dhaaf ah u cabi jireen ciidamadii inkishaariya loo yiqiin sidaas darteed ciidamadii inkishaariya go'aankan way ka hor yimaadeen waxayna ku qasbeen inuu ka laabto Suldaan Muraadkii saddexaad wuxuu ahaa shakhsi daciif ah inkasta oo maamulka boqortooyadu uu si fiican u socday intii uu maamulka hayay Sadrulacdamkii Maxamed Baasha Saqlaali laakiin isla markii Sadrulacdam ku dhintay maamulkii boqortooyadu wuu xumaaday sababtoo ah hooyadii Suldaan Nuur Baanu iyo xaaskiisa Suldaan Safiya waxay faragelin ku hayeen arrimaha maamulka boqortooyada waxaana bilaabmay hoos u dhaca boqortooyadii Cusmaaniyiinta inkasta oo xuduudihii boqortooyadii Cusmaaniyiintu ay gaadheen heerkoodii ugu sarreeyay intii uu xukunka hayay Suldaan Muraadkii saddexaad haddana dowladdu ma ay ahayn mid ilaalin karaysay dhulkii ay qabsatay waxaa si weyn loo rumaysan yahay in daciifnimada boqortooyadii Cusmaaniyiintu ay soo bilaabantay xilligii aabihii uu xukunka hayay sidoo kalena ay sii korodhay muddadii uu xukunka hayay Suldaan Muraadkii saddexaad dhinaca dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee dhacay intii uu xukunka hayay Muraadkii saddexaad qodobka koowaad soo gelitaankii Poland ee xukunkii Cusmaaniyiinta intii uu xukunka hayay Suldaan Muraadkii saddexaad dagaalo dhowr ah ayaa ka qarxay meelo kala duwan haddaba sanadkii 1574 miilaadiga boqorkii Poland ee Henry de Valios wuxuu u cararay Faransiiska kadibna Suldaan Muraadkii saddexaad markii uu la tashaday dadkii caanka ahaa ee reer Poland waxay isla garteen in ay boqor u doortaan amiirkii xukumi jiray Transylvania sidaas darteed Poland waxay ku sii hoos jirtay xukunkii Cusmaaniyiinta Austriana waxay arrinka aqoonsatay kadib heshiiskii nabadeed ee ay la gashay boqortooyadii Cusmaaniyiinta sanadkii 1576 miilaadiga dhinaca kale Suldaan Muraad wuxuu dib u cusboonaysiiyey heshiisyadii Faransiiska iyo Finnish iyadoo la kordhiyey qaar kamida waxyaabaha ay doorbidayaan dhinaca kale heshiiskii dhexmaray boqoradii Ingiriiska Isabella iyo Suldaan Muraadkii saddexaad heshiiskaasi wuxuu ogolaanayay Ingiriiska in maraakiibta Ingiriisku ay sitaan calankooda marka ay soo galaan xeebaha iyo dekedaha Cusmaaniyiinta taasoo markii hore aan loo ogolayn qodobka labaad gelitaankii Maraakish sanadkii 986 hijriga kuna beegan sanadkii 1578 miilaadiga kacdoon ayaa ka dhacay Maraakish arrintuna waxay ka soo bilaabantay loolan awoodeed oo u dhaxayay Maxamed al-Mutawakkil cala Allah
oo isagu ahaa suldaanka Maraakish iyo adeerkii Sultaan Abu Marwaan Cabdulmaalik. kadib markii Sultaan Abu Marwaan Cabdulmaalik uu xukunka ka tuuray wiilkii adeerka u ahaa ee Al-Mutawakkil cala Allah isagoo adeegsanaya taageeradii dowladda Cusmaaniyiinta. sidaas darteed Al-Mutawakkil wuxuu caawimaad ka raadsaday boqorkii Boortaqiiska ee King Sebastian. kadibna boqorkii Boortaqiiska ee King Sebastian wuxuu soo abaabulay duulaan Salebi ah oo ka kooban dhowr waddan oo reer Yurub ah oo ay ka mid ahaayeen Isbayn, Talyaaniga, Jarmalka iyo Boortaqiiska, si ay maamulka Morocco oo kaashanaya boqortooyadii Cusmaaniyiinta ay uga xoreeyaan Morocco, xukunkana ay dib ugu celiyaan Al-Mutawakkil cala Allah. ugu dambayntiina labadii ciidan waxay ku kulmeen dooxada Waadi Maqsiin ee koonfurta magaalada Qasru al-Kabiir ama Kutama Balad, sidoo kalena loo yaqaanay dagaalkii saddexda boqor, kaasoo dhacay 4tii bishii Agost sanadkii 1578 miilaadiga. haddaba dagaalkii dhex maray isbahaysigii Kiristaanka iyo isbahaysigii Morocco iyo dowladdii Cusmaaniyiinta waxay guushu raacday isbahaysigii Cusmaaniyiinta iyo Morocco. King Sebastian iyo Al-Mutawakkil cala Allah waxa lagu dilay dagaalka, sidoo kalena Sultaan Cabdulmaalik isla maalintaas ayuu dhintay. sidaas daraaddeed dagaalka waxa loogu magac daray dagaalkii saddexda boqor. sababtan awgeed waxaynuna kaga hadalnay taariikh gaara, waxayna ku jirtaa channelka. tan saddexaad, dagaaladii dowladdii Safawiyiinta. sanadkii 1577 miilaadiga qalalaase ayaa wuxuu ka dhacay dowladdii Safawiyiinta ee Iran kadib dhimashadii Tahmaaskii koowaad. Cusmaaniyiintu waxay ku qaadeen dagaal, waxayna qabsadeen magaalooyin ay ka mid ahaayeen Tiflis iyo Karaj. kadibna Cusmaaniyiintu waxay galeen magaalada Tabriis sanadkii 1585 miilaadiga. sidaas darteed ciidamadii Cusmaaniyiintu waxay awood u yeesheen inay xukumaan dalka Azerbaijan, Karaj ee Georgia, Sharwan iyo Luzistan. haddaba markii uu Shaah Cabaaskii weynaa uu la wareegay xukunkii Safawiyiinta, wuxuu heshiis nabadeed la galay boqortooyadii Cusmaaniyiinta. sidaas darteed wuxuu ka tanaasulay goobihii ku dhacay gacantii Cusmaaniyiinta. sidoo kalena wuxuu ballan qaaday inaan la aflagaadayn doonin khulafaa uraashidiintii ahaa Abubakar, Cumar iyo Cusmaan ee baa ka raalli noqdee dhulka boqortooyadiisa oo dhan. wuxuuna u diray adeerkiis Haydar Mees safiir ahaan ayuu wuxuu ugu diray Istanbul si loo hubiyo dhaqangelinta wixii ay ku heshiiyeen. qodobka afraad, dilkii Sadrulacdamka. Sadrulacdamkii Maxamed Baasha Saqlaali waa mid ka mid ah raggii ugu caansanaa xilligii dowladdii Cusmaaniyiinta. asalkiisuna wuxuu ka soo jeeday Bosniya. wuxuu qabtay xilka Sadrulacdamka oo ahaa jagada ugu sarraysa boqortooyadii Cusmaaniyiinta, wuxuuna hayay muddo 14 sano ah. wuxuuna la soo shaqeeyey 3 suldaan oo kala ahaa Sultaan Sulaymaan al-Qaanuuni, Sultaan Zaliimkii labaad iyo Sultaan Muraadkii saddexaad. Sadrulacdamkii Maxamed Baasha wuxuu ahaa ninkii boqortooyadii Cusmaaniyiinta ka badbaadiyey inay dunto. kadib geeridii Sultaan Sulaymaan al-Qaanuuni wuxuu awooday inuu si karti leh u maamulo siyaasadda dowladda, sidoo kalena wuxuu ilaaliyey kala dambayntii ciidamada, gaar ahaan ciidamadii Inkishaariya oo ahaa ciidanku ugu awood badan uguna xun boqortooyadii Cusmaaniyiinta. si kastaba ha noqotee, markii uu dhintay Sultaan Zaliimkii labaad sanadkii 1574, wiilkiisii Muraad ayaa fuulay carshigii boqortooyadii Cusmaaniyiinta. haddaba sida laga soo xigtay taariikhyahano badan, Sultaan Muraadkii saddexaad ma jeclayn sumcadda sii kordhaysa ee Sadrulacdamkii Maxamed Baasha Saqlaali, maxaa yeelay wuxuu u madax bannaanaa go'aamada boqortooyada. isla markaasna Sultaan Muraad awood uma lahayn uu shaqada kaga caydhiyo, maxaa yeelay wuxuu ku tiirsanaa ciidamadii Inkishaariya. sidaas darteed sultaanku wuxuu ka baqayay inay ciidanku afgembiyaan haddii uu xukunka ka tuuro Maxamed Baasha Saqlaali. dhinaca kale, awoodaha Sadrulacdamkii Maxamed Baasha Saqlaali waxaa ka masayrsanaa wasiiro badan, gaar ahaan wasiir Axmed Baasha, wasiir Mustafa Baasha Lala iyo wasiir Sinaan Baasha, kuwaasoo saamayn ku yeeshay Sultaan Muraadkii saddexaad. waxayna ku heshiiyeen inay ka takhalusaan Sadrulacdamkii Maxamed Baasha Saqlaali. haddaba Sultaan Muraad iyo wasiiradani waxay dejiyeen qorshe lagu yaraynayo saamayntii Maxamed Baasha, waxayna bilaabeen inay si tartiib ah uga saaraan xulafadiisa awoodda xukunka. dhacdooyinkaasna waxa ugu muhiimsanaa dilkii loo geystay nin ay qaraabo ahaayeen oo lagu magacaabi jiray Mustafa Bey,
oo ahaa guddoomiyihii Buuda. Buuda waa qaybta galbeed ee caasimadda Hungary oo ku taalla daanta midig ee webiga Danube. Haddaba Maxamed Baasha oo ku sugan qasrigii Baabul Culaa 11kii bishii Oktoobar ee sannadkii 1579 ayaa la dilay kadib markii nin xashaashiyiintii ka mid ahaa uu ku dhuftay mindi, waxaana lagu aasay Istanbul. Qodobka 5 kacdoonkii ciidamadii Inkishaariya. Dilkii Sadrulacdamka waxay ahayd dhibaato weyn, waxayna furtay albaabada sharka, waxayna wiiqday awooddii boqortooyadii Cusmaaniyiinta oo waddanka waxaa ka bilaabmay musuqmaasuq, taasoo ay sababtay daciifnimadii suldaanka iyo sii deyntii gacantii wasiirada oo lagu sii daayey maamulkii dowladda. Xilka Sadrulacdamkana waxaa loo magacaabay Wasiir Sinaan Baasha. Haddaba ciidamadii Inkishaariya waxay kacdoonno ka sameeyeen gobollo badan oo ay ka mid ahaayeen Istanbul, Qaahira, Tabriis iyo Buuda, waxayna dileen barsaabadii gobolladaas. Sadrulacdamkii cusbaa ee Sinaan Baasha wuxuu awoodi kari waayey inuu xakameeyo ciidamadii Inkishaariya. Sidaas darteed Sadrulacdamkii Sinaan Baasha wuxuu go'aansaday inuu ciidanka ku mashquuliyo dagaalkii ay kula jireen Hungary oo ay taageerayso Austria. Sidaas darteed tiro badan oo ka mid ah ciidamadii Inkishaariya ayaa loo diray dagaalkii Hungary, laakiin ciidankii la diray waxaa soo jebisay Austria oo taageeraysay Hungary, waxayna ka qabsadeen boqortooyadii Cusmaaniyiinta qalcado dhowr ah. Kadib markii ciidamadii Cusmaaniyiinta la soo jebiyey, waxaa kacdoon sameeyey amiiradii Moldavia, Transylvania iyo Wallachia, waxayna ku biireen Austria oo la dagaalamaysay Cusmaaniyiinta. Sidaas darteed Sadrulacdamkii Sinaan Baasha ciidan ayuu ku saaray sannadkii 1594 miilaadiga, laakiin ciidankii Cusmaaniyiinta waa laga guulaystay, waxayna lumiyeen magaalooyin dhowr ah. Qodobka 6 Yuhuudi iyo Suldaan Muraadkii 3. Yuhuudi waxay moodeen inay u bislaatay fursaddii ay muddada dheer sugayeen ee ahayd inay Falastiin ku noqdaan. Sidaas darteed waxay u soo haajireen si goos-goos ah, waxayna yimaadeen meel ku dhow Siinay si ay halkaas u degaan. Marxaladihii hore qorshahoodu wuxuu ahaa inay xoogga saaraan degitaanka magaalada Altuur. Sababta ay u xusheen magaaladanna waxay ahayd maadaama magaaladan ay ku taallo xeebta bari ee gacanka Suweys, ayna leedahay dekad ku habboon soo dejinta maraakiibta ganacsiga. Sidoo kalena waxaa iman jiray maraakiibta ka timaada magaalada Jidda, magaalada Yambu, Sokiyaan, Aqaba iyo Qulaam. Sidaas daraaddeed Yuhuudda waxaa u fududaanaysay inay maraakiibta ay ku soo daabulayaan Yuhuudda ay ku soo xidhan karaan dekedda Altuur. Dhaqdhaqaaqan lagu soo daadguraynayo Yuhuudda waxaa hogaaminayay nin Yuhuudi ah oo la odhan jiray Abraham, kaasoo carruurtiisii iyo xubno kale la degay magaalada Altuur. Haddaba markay Yuhuuddii degeen Altuur, waxay waxyeello u geysteen dadkii deegaankaa degganaa oo ay ka mid ahaayeen raahibo halkaa degganaa, taasoo ku kaliftay in raahibadii halkaa degganaa ay cabashooyin qoraal ah u diraan saldanadii boqortooyadii Cusmaaniyiinta oo ay kaga cabanayaan xadgudubka Yuhuudda. Sidaas darteed Suldaan Muraadkii 3 wuxuu amar ku bixiyey in dhammaan Yuhuudda laga saaro Siinay, sidoo kalena laga hor istaago Yuhuudda inay ku soo noqdaan Siinay. Dhinaca dhimashadii Suldaan Muraadkii 3. Suldaan Muraadkii 3 wuxuu dhintay sannadkii 1003 ee Hijriga kuna beegan 1595 miilaadiga. maantana halkaa inoogu jeegto taariikhdeena yareed. Wasalaamu calaykum.